waxaa joognaa VAB-da waa kana saaxiibkayga Haykal waa u jeedin diyaaradaha meeshiyaa joognaa maariya waa soo degi rabtaa laakiin waxaa rabaa inaa hal iyo laba meeshaan aan ka dhaho wax indheyga tuseen inaa meesha aan ka dhaho meeshaan waxaa ka dhacday Hargeyso soo dhaweyntii cimriga oo qarniga weligay arkin wallaahi wax loo dhiga malahan hal fariinaa rabaa maariya inaa inta uga diro maariya wallaahi bilaahi tallaahi waxaa heshay bah ku jecel yar iyo weyn waa lagu wada jecel yahay Haykal كل هذا الحوار هذا بيقولي صح ما كان أنت يعني أكثر حكم معه كان حليه أكثر شغله أكثر قيمة وين ولا سوى له هاي كان بكينه وحويا كل يدق شغال ماذا كان هذا قيمة بدن جعل كوا سوداو بقرده وفريس سوداو أنا كسوداوين أنا ماشي لي ماريا سوداو عمرك قاطع soo dhaweyn waan arki jirnay dad caan ah isguursanay waan arki jirnay laakiin noocan camal weli ma dhicin maasha Allah boqorada styleka looma kala harin yaraan weynaan sidii sharafta loo soo dhaweeyay gawar walba way ka masirtay war gawar walba oo caan ah maanta wallahi kuwii hore iyo kuwii dambe way ka masireen arooskeeda waa aragteen soo dhaweyntii ayaa ka sii darneedba yaa u maleynayay in boqorada styleka iyo Haykal isku dambeyn doonaan calafka waa cajiib maasha Allah sida arkaysaan labadan qof isku jecel yihiin sida isku soo baxayaan inta badan hadaa aragtay daawaday dadka caanka ah mar gabar shidan mar wiilka shidan laakiin kuwan maasha Allah way isku soo baxaan qof walba mise gabar walba waxay jeceshahay meeshay ka guursanayso in dad fiican ay yihiin dad wanaagsan ay yihiin boqorada styleka way nasiib badan tahay dad waxay heshay jecel dad soo dhaweynayo waa aragteen war iska dhaaf familiga Haykal dadkii ayaa u soo baxeenba waxa arkaysaa dadkii gareynayaan oo dhawanka ka shuminayaan waxaad u maleynaysaa madaxweyne dhan in la soo dhaweynayo war xitaa dawladda ayaa ka qayb gashay gabadhan soo dhaweynteedii iyo arooskeedii social media wuu ka yaabiyay waa arki jirteen dad badan oo caan ah isguursadeen yaa waxaasaan ugu mashquuli jiray maasha Allah aan dhaho yaa waxaasaa u daneyn jiray yaa waxaasaa u fiirin jiray yaa ku mashquuli jiray boqorada styleka way nasiib badan tahay markii horeeto reer Hargeysa dadka waxay ka aaminsaneen dhinaca social media dad xirxiran oo Hargeysa markaas u tagto walaada kuwa dhahayeen boqorada markay u tagto ama xabsiga la dhigaa beent iyo laga wareejin jiray bara bulshada laga dhigi jiray Hargeysa laakiin videogan wuxuu xaqiijiyay dad wanaagsan inay yihiin dad furfuran dad jecel dad soo dhaweyn jecel dadka soo dhaweynayaan si sharaf ah yani wallahi aniga iska jeclaaday markii hore social media been ayuu sheegaa dadka been ayay faafiyaan waa aragteen ay dhahayaan hadad Hargeysa lugta lagu saaro adigoo xataa wax sameynin xabsiga ayaa la iska ka dhigaya beenti away waa aragteen yaraan iyo weynaan qof uma kala harin boqorada styleka si loo soo dhaweeyay si loo jecel yahay gabadhoodii ruuxiiba ka jecel yihiin reer Muqdisho gees iska dhig Hargeysa jaceylka boqorada styleka u hayaan
waxaan aaminsanahay hataa haddii madaxweynenimo usoo istaagto in la qaadanayo. Waa aragteen arooskeedii, dad ma kala harin. Maasha Allah, fanaaniin waaweyn ayaa joogeen. Markii horeeto fanaaniinka iyo youtuberada aroos imaanayaan hal mar isla imaanayaan weli lama arag. Laakiin kan wuu ka dugnaa, dadkii dhan ayaa isku imaadeen. War xataa culimo ayaa kasoo qayb gashay. Maasha Allah, laga yaabaa gabadhan ani ma garanayo Said, laakiin dad wanaagsan inay ka dhalatay. Gabadha markay xaafadooda joogtay iyo hooyada la joogtay, markay ka duceysato dadka asxaabta ay jeceshahay, ayna dadka u kala dad yasaan oo dadka yasin, oy leedahay qalbi wanaagsan. Ugu dambeyn waxay u dambeynaysaa, waxay helaysaa dad wanaagsan, dad jecel, dad soo dhaweynayo. Hadda waa aragtiin gabadhan, maasha Allah, qof u kala haray ma laha. Waxay heshay reer jecel, reer soo dhaweynayo, reer ixtiraamayo, reer ka dhigayo inayba gabadhoodii tahayba. Iska dhaaf family haykal sidaan igu sheegay, dowladda, dadkii shacabka ayaa soo dhaweeyeen. Ani markii horeeto waxaan u maleynayay video intaan gelin in madaxweyne la soo dhaweynayo. Qofkii saa u soo fiirinin wuxuu u maleynayaa qof madaxweyne in la soo dhaweynayo, si loo jecel yahay, si la ixtiraamayo. Waad aragteen gabdhaha. Hadana video xiran waxaan la hadlayaa gabdhaha iska guursanaya nin walba, sarwaaley walba arkaan iska raacayaan. Gabdha qaar ayaa ku fududaanaya guurka, waxay leeyihiin ama nin waaya iyo guur walba ku dhacayaan, guur walba ku ordayaan. Subxaanallah, ee qof walba ku ordayaan, iskama fiirinayaan. That's why u arkayso furitaan badan, mise gabadhii intii uur ku dhacday, gabadhii uur leh, sidii la jeclaanaynin, la soo dhaweynaynin, hooyanimada ay gashay lagu ixtiraamaynin. Waxaa arkaysaa qof gabdhahay ku dhacayaan nin mas'uuliyad qaadi karin, sababta ah gabar saaxiibteed mise gabar walaasheeda guur gashay. Guurka midka daaho, guurka midka loo fiirsado ayaa inta u badan raaga. Laakiin haddaa dhahdo waan ku fududaanayaa, qof walbaad iska aaminaysaa. Ninka waa inaad iska fiirisaa, markaa xanaaqdo ma ku dejin karaa. Maanta marka wax la'aan dhacdo, kor iyo hoos ma u boodi karaa, ma ku siin karaa wax walba. Waa inaad iska fiirisaa. Gabdhaha maxaa leedihiin?